hal qof ayaa ku geeriyooday tiro dadna xabsiga ayaa loo taxaabay kadib markii ay howlgalo ay ciidamada amnigu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar. Howlgalkan oo ay ku waabariisteen dadka ku dhaqan xaafadaha Buulama Keene ee ka tirsan Kulmis ee gudaha magaalada Jowhar ayaa waxay ahaayeen kuwa intooda badan dadka dhalinyarada loo taxaabay dhanka saldhigga magaalada Jowhar, kuwaas oo halka lagu weydiinayo su'aalaad ay laamaha amnigu ay u arkeen in ay ku xaqiijinayaan amniga magaalada Jowhar. Qofka geeriyooday ee la sheegay in ciidamadu ay toogteen ayaa lagu toogtay gudaha xaafadda Buulama Keene sida xogta ay idaacadani asal ay ku heshay kadib markii sida la sheegay muran uu soo kala dhexgalay askarta xilligaasi howlgalka horkacaysay iyo waliba shakhsiga la toogtay. dadka careysan howlgalada iyo waliba dilka shakhsigaasi ayaa la sheegay in gudaha magaalada banaanbax kooban ay ka dhigeen isla markaana taayaro ay ku gubeen, inkastoo laamaha booliisku ay mar dambe ku guuleysteen in dadka dibadbaxyada dhigay ay kala ceeriyaan. xiriiraad ay la sameysay idaacadani asal taliska ciidanka booliiska ee saldhigga magaalada Jowhar waa ay ka gaabsadeen faahfaahin dheeraad ay ka bixiyaan howlgaladii maanta iyo waliba shakhsiga ku geeriyooday gacanta ciidamada amniga. dhanka kale xiriiraad aan ula sameynay maamulka degmada Jowhar waa ay ka gaabsadeen in ay ka jawaab celiyaan taleefanaadka. hasaatee howlgalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay howlgalo ay ciidamada amnigu ay inta badan xilliyada habeenkii ay ka fuliyaan gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.